السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي kusoo dhawaada channelkayga Muna Som waa walaashiina Muna sidaan idinkaaga ballan qaaday maanta waxaan idinla wadaagayaa wiigii cuntada sidaan u qorsheeyo sidaan hore idinkugu sheegayba waan soo diyaarsadaa waan sii qoraa adeegi ii yaalo iyo waxyaabahaas ayaan isku fiiriyaa kadibna waxaan sameeyaa liista ayaan samaystaa waxyaabaha ii yaal iyo waxaan ka sameyn karo marka farta buluuga oo kala waxa waaye suxuur ayaan ka dhigayay farta madowgane waxa waaye afurkii ayaan ugu talagalay marka insha Allah waan idin tusin doonaa isbuucan waxa waaye isbuucii la soo dhaafay liistigan ugu talagalay wiigaasi oo cuntada ah marka waan idin tusin doonaa anigoo karinaya inta badankood waxa waaye waan soo geliyay YouTube-ka sidaad u aragtaan isniintoo kale waxaan qorsheeyay inaan kariyo bariis cad iyo shilikan koone waa arkayseen shilikan koonaha markii aan karinayay cunto walbana waxaa ii qorsheysan wax yar oo salad iyo iisha ground soccer oo kale inaan raaciyo ama vegetable sida u taqaanaan talaadada qorshay wuxuu ahaa baasto bariis aanan dhihin iyo malaay iyo suugadiisa ayuu qorshay ahaa arbacadii ayaa inoo soo hartay arbacadii waxaan qorsheeyay inaan karinayo canjeero iyo maraq waxa kaliya hadda aan idin tusinayo waxa waaye the main dish mal laha oo lagu afuro suxuurtii maanan idin tusinin waxaa inoo soo hartay khamiistii waxaan kariyay bariis cad iyo basbaas iyo hilib ayaan kariyay bariis Soomaali ayaa naga haysay waxaa inoo soo haray jimco waxaan kariyay waa digaaga sidan ayaan u habeenayay iyo bariis cad iyo waxaan kaloo kariyay curry sauce sida u taqaanaan jimcadii ayaa noo soo hartay pan beef ayaan sameeyay oo iisha green sauce iyo bulgur lagu cunayo cuntooyinka qaarkiisa way adag tahay Soomaali oo kala inaan kulli aan ku wada sheego maadaama aanan caado ama aanan u lahayn in aan cuno marka pan beef oo kala yacni hilib shishiid ayaan ka sameeyay iyo khudaar iyo carfis iyo wax yar oo sauce ayaan ku dhex karinayaa kadibna bulgur ayaan ku cunay waxaa soo haray axadin waxaan sameysanay digaag oo suuga aan ka sameeyay oo baasta lagu cunayay marka wiigii oo kala sidaan ayaan cuntooyinka aniga aan u qorsheeyaa haddana afurkii kaliya ayaan idin tusay oo suxuurtii ma aanan arkaynina haddana jadwalkeeni maalinlaha ayaan sii wadanaynaa maalintaani sanaya inoogu bilaamatay waxa waaye gacmaha la rinjiyeynaa anigoo face mask iyo waxaas marsaday ayaa caruurtii arkeen gabadheedii aragtay kadibna waxay dhahdaa anigana waa in la qurxiyaa marka saladeeda yar oo kalarada ugu jira ayaan la soo baxnay ciyaha ayaan u marmariyay iyo wax yar oo face mask yogurt yar ayaan wajiga u mariyay yogurada oo iisha Greek yogurt ma aragtay halko qaanto aan u mariyay maanta laakiin qorshahayga weyn waxa waaye inaan ciidaan isku diyaariyo oo ciidaan u soo adeego marka banaanka ayaan u soo baxnay waxa waaye shopping yar ayaan u baahanahay ciido maasha Allah waqti badan ma aysan ka harin xilli fiican ayaan jeclahay in aan isku diyaariyo maadaama dharkii iyo wixii alxamdulillah aan haysto foundation kaani ayaa maanta soo gatay oo aan rabaa inaan tijaabiyo wax badan ayaa la amaanay marka dukaanka makeup-ka ayaan ku jiraa kadibna waan bixi doonaa makeup-ka markuu inoo dhamaado alaabihii aan u baahnayo iga dhamaaday markaan soo gato waxaan aadi doonaa dukaan Afrikaan ayaa aadi doonaa alaabo ayaan ugu baahana foundationkii aan soo gatay powder wig ayaan u baahnay marka miiskaas ayay fadhiistay waxa waaye powderkii alaabtii aan soo gatay haddana waxaan raadinayaa hadiyada ciidaha ayaan raadinayaa dukaankan ayaan ku jiraa wixii ilmo loogu talagalo dhan ayay hayaan hadiyada ciidii markii aan soo gatay waan bixinaa waxaan isku raaci doonaa dukaankayga aan idin sheegayay oo Afrikaanka waxaan ugu baahanahay taakooyin iyo waxaan ugu baahanahay wax yar oo muus yar oo timaha la mariyo iyo gel iyo waxaas ayaan uga qabanayaa hadda waa ujeedin dukaankii ayaan imaanay dukaankan inaba caadi maahan sidoo u weyn yahay alaab walbo ay hayaan shaladaani ayaa iga dhuntay shaladana hore ayaan u soo qaatay gelkan waan u baahnaay timaha kala ilmaha markii loo dabaayo caadi maahan iyo waxaan kale u baahnaay koofiyadan oo habeenkii lagu seexanayo si timaha aysan kaaga jajabin
hore haddaadan u tijaabin tijaabiya idin dhihi lahay aad iyo aad ay u fiican tahay. Dadka dhan waxaa waaye waa la wareegayay, dukaan walba aa gashid saf ayuu noqonayay. Marka afur xitaa kama gaaraya inaan kariyo, afur ayaan soo gadanaynaa. Waa maalintii labaad oo banaan aan kasoo afurno. Inta kale waxaa maasha Allah gurigii ayaan kusoo afureynay. Bal idinka iiga warama, guriga miyaad ku afureysay mise banaanka? laga ballan qaaday wiigan gudihiisa maalin walba waxaan isku dayaa insha Allah inaan app aan idinkaaga faa'iideeyo. Appkaan ayaa maanta jeclaystay. Appkaan waxaa wax badan ayaa caruurta ay ku fahmayaan. Wuxuu idinka caawinayaa waxaa waaye sida salaada loo dukado iyo sida loo weyse qaato labadaba. Marka appka magaciisa waa ujeedeen Muslim Guide Salah and Wudu ayaa la dhahaa. Waa soo degsanaysaan, boonbalahaas yar ayaad arkaysaan. Markii appkaa soo degsataan sidaani ayaa sidaan ayaa idinka soo horbaxayso. Laba qayb ayuu leeyahay, marna waa salaadii marna wuduudii. Hadda salaadoo kale ayaan ku hormaraynaa. Salaatu subax ayaan ku dhufanayaa si aad u aragtaan siduu u sharaxayo. Cod maqal iyo muuqaal labadaba wuu leeyahay. Ilmahana maasha Allah way u fiican tahay. Ilmaha aanan akhrin karin xitaa carabiga oo kala laatiin ahaan ayaa lagu qoray. Micnihii oo ingiriisna maasha Allah mar walba wuu daba socdaa. Marka waa kana takbiirtii oo kala waa lagu sheegaa sida la sameynayo, qoraal ahaan, muuqaal ahaan iyo dhageysiga labadaba inta buu leeyahay. Marka waa ujeedin salaada subax oo kala ilaa 15 step ayay leedahay. 15 step ayaad isla fiirinaysaan caruurtii. Maalin walba hal hadii la barto waxaa waaye way ku filan tahay. Teeda kale tana salaada maalin walba maadaama isku wax la akhriyo way u fududaanaysaa. Salaad subax oo kale hadii aad ku hormartaan oo salaad subax oo kale markii ay bartaan salaadaha kale very easy ayuu u noqonayaa. Marka hadda waa kana ujeedin step by step ayaan ila tusinayaa. Boonbalahaas yar inaba caadi maaha, ka faa'iideysta ayaan idin dhihi lahay. Qaybta wuduudana hal mar waan isla fiirinaynaa. Qaybta wuduudana markaad ku dhufatid step by step ayuu ku tusinayaa sidaad u weyse qaadan lahayd, waxyaabaha aad akhrinaysid iyo micno yar oo ingiriisi ay ku sharxayaan. Marka insha Allah asxaabta waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideysateen muuqaalkan. Insha Allah like iyo comment iyo share intaba waa xagiina. waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan oo mar walba aad ila socotaan. Jazakallah khair ayaan idin leeyahay. Tobanka dambana waa lagu jiraa aan ka wada faa'iideysano, aan isku soo duceyno meel walba adduunka aan ka joogno. muraad yarna waan leeyahay insha Allah muraadkayga inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ii sahlo iyo qof walba muraad ila leh. Faatixada insha Allah inoogu soo mara. Until next time asxaabi, assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.